السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kusoo noqod wanaagsan. Maanta waxaynu bilaabaynaa casharkeennii lixaad. Waxaynu ku baran doonaa casharkan sida loo sameeyo sample design ama roll up banner sida loo sameeyo. Roll up bannerku waa mid kamid ah muxuu ahaay designada. Waa mid kamid ah boorarka. Boorarka markaa weliba loo qaato xafladaha iyo meheradaha la dhex dhigto bannerada yaryar ee la dhigtaa. Roll up banner. Bannerka halkan inooga muuqda inaan samayn doonaa markaa. Waxaynu samayn doonaa bannerka halkan inooga muuqda. Marka waxaan u wareysin doonaa si caadi ahayd cabirka markaa waxaan ku sheegi doonaa cabiradeenii roll up banner cabirkiisu waa 179 inta baan soo kordhisanaya kordhisii file baan imanayaa dabeetana new baan leeyahay marka waa pixel weeye widthka markaa aan pass gareeyo kan waxa weeye waa heightka weeye widthkana aan soo eego widthkan waxaan leenahay 179 1179 waxaan markaa portrait deetana create baan leenahay hadda zero baan leeyahay markaasaan soo hordhaweeyo marka waxaan ka bilaabi doonaa shapeska ugu horreyn ka bilaabana pen tool baan isticmaali doonaa waxaan leenahay pen toolkan tegaynaa leenahay click baan leenahay click baan haddana click angle yar baan samayn doonaa marka casaankaasaan siin doonaa retic soo yarweynsiinaya angle-ka markaa laba angle baa isku daba jira labaadna aan sameeyo laftarkiisa koobiye laftarkiisa control iyo baan leeyahay control iyo check inuu koobiyeysma control iyo check iyo koobiyeysmay markaa kan waxaan ka bedeli doonaa aan leeyahay kalarka waxdiisa madow madowgana labadan layer marka waa inay kala saraysiiya casaanka soo saraysiiya baan leeyahay haddana casaanka dib yara dhig madowgu soo yar baxo intaa okay baan leeyahay waayahay qaybtan goobada saddexdan gooba iman doona markaa aan leeyahay toolka aan dooranaya la yar qabanaya si toosaan goobada marka casaan baysiina madowga ka masaxna ini markaan doorto waan soo qaadaya hebel lahay wax soo qaadi doona marka goobo ameenaas alegsiin doona roganon baan leeyahay wuxuu dhigi doonaa halkan control J baan leeyahay goobada laftirkeedan koobiinaya control J ana control T waxaan ka bedeli doonaa yareeyo halkan ka bedelaya laftirkeedan wax qari doona madow baan leeyahay halkan madow qari markaan sameeyo waxaan tegi doonaa goobada saddexaad sidan goobo yar baan ka dhigi doonaa markaa tani koobiye control J waan yareyn doonaa control T yar baan yareynaya halkaas dhex electrical baynu yaala marka sawir baynu soo gelin doonaa electricalka ugu dambeeya baan joogaa meelaan tegayaa disable baan leeyahay sawir baan soo qaadaya marka sawirkan waa kan yareeyo aan leekisiiya marka markaan idhaahdo waxaan u tegayaa sawirka geedkii labaad leeyahay soo yarweynaysiinaya halkaan markaa sawirka waa iga dhamaaday waxaan gudbi doonaa marka qaybaha kale qoraalkan baynu qori doonaa global business solutionkan markaa tape toolka tag click waxaan ku qori doonaa global
afartana markaan soo bedelayaa labaatan ka dhigi doonaa waan soo yarweynsiinayaa laba markana madow baan ka dhigaa marka madow ayaan leeyahay labada marka saa u dhigto iyadoo lafteeda kordhinaya control J ayaan soo dhig markaa business solution ku qoraya business markaan bedelo marka marka casaan aan ka dhigo waan leeyahay way ii koobiya iyada lafteeda control J ku qoray markaa solution madow baan ka dhigaa markaa solutions control T oo yara yareynaya marka intaa markaan sameeyo ayaa waan isku select garaynaya saddexdooda halkaasaan dhigayaa kana gudbaya markaa qaybihii ugu dambeeyey soo qaadi doonaa shibkan baan noo samayn doonaa markaa shibkaasaan u sameeyo angle ii soo qaad angle xagaa dhig colorkiisa markaan ka bedelo control waxaan leeyahay markaa T and right click baan leeyahay waa markaan leeyahay markaa halkan hoos soo jeedi doonaa intaan hoos soo jeedo ama hoos soo yara jeedi doonaa waxaan soo jeedaya aan ku durkaya markaa okay baan leh intaa markaan sameeyo waxaan gudbayaa markaa qoraaladan inaan yareeyo control T hal mar hadda doonaysa isku select garaysid waxaan leenahay left click ku jeedi doonaa control T raacina qaybta sare naga raaca markaa waan gareeba qaybta sare control T ana yareynaya aan dhigayaa qoraaladii kale markaa dhigi doonaa oobada oobaya baan soo jeedi doonaa marka casaankaan siin doonaa waan kobinaya control J ilaa halka marka saa ugu daayo qoraalka markaa ku qorayo waxaan ahay textbookkaan tegayaa qoraalada baan soo jeedayaa waan bedelayaa waan yareynayaa kalarkan marka wax ka dhigaya madow intaa markaan sameeyo control J baan leeyahay waan kobiyana markaan farto dexdhul baan ka dhigaya control J markaan sameeyo waan gudbi doonaa markaa rectangle-ada yar baan gudbayaa jiidadka dhexda waxaan leeyahay iska rectangle yar xagga ku jiid rectangle yar markaa fadhiisad angle-ka waan yareeyaa markaa control plus inaan isin soo rogayno yar markaan waan sameeyaa halka casaan ka siinayaa dhigi doonaa markaa layerska angle-ka dushiisaan tegayaa angle-ka ii doona dushiisa then right click slice layer baan leeyahay doonaya markaan sameeyo soo qaadaya goobada control X baan leeyahay angle baan soo qaadaya control X meesha looga saaro control X waayahay intaan markaa sameeyo markaa waan kobinaya angle control J soo qaad hoos soo dhig dhammaantood isku wada select garee control T intaa markaan sameeyno waxaan gudbi doonaa qaybtii ugu dambeysay ee contactiska markaasaan samayn doonaa imkana marka qoraal baynu soo qaadanaa qalaan ku noqday control J duska u raaca markaa control sar noqonaysaa qoraal baan u baahanaya qoraal keliya control J baan leeyahay waan soo dhiganayaa qoraalka markaa shaybka way kala hooseeyaa qoraalkan u imanaya deetana kor baan u qaadaya ugu sareyn ka dhigaya marka ka dhigaya ugu sareeya
soo qaad double click kalarka bedel marka contactkaas waan furayaa control T aan yareeyo taasaan dhiganaya waay intaa marka sameeyo lamaraantan iyo iconska baa inoo haray dhigi doonaa markaa file plus input soo qaadi doonaa markaa iconska soo qaadaya icons waa kuwan background bay wataan background ka jarnaa marka backgroundka caddaanka bay wataan dhigayaa browser toolka aan kasii dooranaya image browser tool dhig baan leeyahay marka background bay ka saari doonaa backgroundkii nooga baxay control T si aan u yarayno qaad markaan horgeeyo kolka iconka inoo horeysana file baan tegayaa plus input marka icon waa kan isaguna background buu leeyahay background ka jarnaa ka jarnaa control T si aan u yarayno halkaas aynu soo dhiganaa intaa marka sameyno qoraalka soo iman doonaa control J baynu kobiyeyna lambarkii baynu ku qoran lambarkiina waa kaa waayahay design-kan saas inuu samaysan yahay markiiba waxa inaga khaldameen oo labada markaa is hoos maray labada markaa ayaan iyagana waan iskor marinayaa oo hal mar dooranayaa labada rectangle ayaan ugu hooseynayaa marka control shift iyo markaa soo wada qaad